واحد عندك تعصيب ولا له الملك سجون دعينا آمين وقول ريال سومالي ما نهي هذه سومالي ما نهي وقول نجعله oo Faarax oo ahaa ciyaaryahan caanka ah dunida isla markaana u orda dalka Ingiriiska ayaa aad uga xumaaday hadalkii uu sheegay Maxamed Saciid Bike xilli uu show ka dhigay magaalada London. Bike ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho isla markaana Somaliland uu aqoonsan laayihiin dawladda gaar ah. Faarax ayaa la sheegay inuu fadhiyay qaybta dambe ee maslaxa isla markaana aad uga xumaaday hadalka uu sheegay Maxamed Saciid Bike isla markaana soo istaagay goobta. Faarax ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho isla markaana ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. Faarax ayaa ah shakhsi si weyn u taageera Maxamed Saciid Bike balse dhacdadani ayaa aad uga xumaa isla markaana uga soo horjeestay saaxiibkiisa. balse subscribe si aad nagula socoto wararkii ugu dambeeyay fanka iyo arrimaha bulshada.